السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنة الكمركة للسود وهذا أدي هذا ومحسنتين ما أنت وقميص لحظة بشر لبعض فبراير سنة كلبضة كون يشان يلباتنك مقال كانوا حربا إن ندخل وذاقوه لبضي تضباط ترام وحلك هيي محاكة السعودية واشنطن ترام لنا عورت وحو كل دجالما يأرين في عن أقوم اللوت كي أيوسف عن ولا دجالما وندلس عسين دون وحياه وكقبتي لنا عكلا أرجوس أيو وضاه ووزارة عدالة iyo sidoo kalena FBI-da dadkii isaga baaray ayuu shaqada ka ceerinaya project 2025 oo aan sanadkii hore idin sharaxay oo ah blueprint la diyaariyay ama qoraal la diyaariyay book oo 900 page ka kooban oo Trump la leeyahay waa qaabka uu ku shaqeyn rabo 4 sano ee soo socota waa iska fogeeyay laakiin hadda waxaad u malaysaa in calaamado ay muuqdaan in uu ku dhaqmayo project 2025 sidoo kalena waa idila socodsiinaya dhinaca kalena أمر بوحة أيو إيلون ماسك وحاوسيي إن وزارتها دولة فدرالكا إنتو نحقلو وحيابها لعقت معنا درهدا لغو بحيو قبي أحام بالجوجي أرنتاسي أو ديمقراطيينتو أي سيئاد هوغا سوهر جستينا أرنتاسي واندلا السعودسينية لنا عميني سوتانا حبنه الديمقراطية الريبوبليكان كأقل كوكيلة حاليا هشيس كارين ساكنا واي كل واقين هذا بهشيس كاسي محوي هينا واندلا وداقيا بس مركو هرام كورمرو ترام waxaan ognahay xilliga ololaha uu ku jiray in waxyaabo fara badan uu sheegay inuu wax ka bedeli doono waxa kamid ah arintan qoomuluudka uu leeyahay caruurtii markii iskuulkaada aadahan waxay ka soo laabanayaan wiil ayaa dirsatay gabar ayaa ku soo laabanaya ama gabar ayaa dirsatay oo wiil ayaa ku soo laabanaya qodbadiisii maalintii dhaarinta waa kii yiri anigu waxaan aqaanaa lab iyo dadig rag iyo dumar wax ka dhaxeeya ma aqaan hadaba arintaasi horta muxuu ka qabtay bal aan idin la wadaago aan ku hormaro ترام horta waxa uu joojiyay dhamaanba dawladda federaalka waxa la yiraahdo DEI diversity equity and inclusion waxa la yiraahdo waxay tahay macnaheedu marka qofka shaqo uu la siinayo kambaniyada waaweyn in la fiiriyo cadaan la siiyo madow la siiyo latino la siiyo dadkan qoomuluudka macnaha qof kasta inuu meesha iska dhaxarko macnaheedu waxa ay tahay ka wada mid ahaasho iyo sinaan arintaasi gabi ahaanba uu joojiyay wuxuu yiri qofka aqoontiisa merit waa in lagu shaqaaleysiya arintaasi dawladda federaalka gabi ahaanba horta waa uu ka mamnuucay wuxuu yiri ma jirto wax DEI la yiraahdo maamulkii hore Biden ayaa dhaqan geliyay wuxuu yiri sidoo kale ma jirto wax la yiraahdo transgender anigu dumar ayaan ahaan jiray hadda rag ayaan isku bedelay ama rag ayaan ahaan jiray dumar ayaan isku bedelay arintaasi ma jirto yiri shalay waxa uu saxiixay wareegto uu leeyahay ciyaaraha dumarka wax rag ah lagu ma arki karo macnaha dad fara badan oo dumar ahaa ayaa wax yiraahdeen rag ayaan isku bedelnay oo hadda waxaan nahay rag arintaasi ciyaaraha haweenka ay ka qayb galayeen wareegtaasi ayuu saxiixay waxaanu yiri iskuulada lagu arko ama jaamacadaha inay arintaasi sameynayaan lacagaha dawladda federaalka ay soo gabi ahaanba waan ka joojinaynaa wuxuu yiri title 9 ayaan u adeegsanaynaa lacagta dadka canshuur bixiyaasha oo iskuulada iyo jaamacadaha lagu bixiyo hadii lagu arko meelaha dumarku ay ku libistaan qof le anigu rag ayaan ahaan jiray laakiin hadda dumar ayaan ahay arintaasi ma soconayso ciyaaraha tartamada wuxuu yiri ciyaaraha dumarka waa in dumarka oo kaliya ay ka qayb galaan bal shalay wareegtaasi markuu saxiixay iyadoo waliba dumar fara badan ay ku hareereysnaayeen bal wax yar ila daawada muuqaalka sign a historic executive order to ban men from competing in women's sports. It's about time. My administration will not stand by and watch men beat and batter female athletes. From now on, women's sports will be only for women. In recent years, the radical left has waged an all-out campaign to erase the very concept of biological sex and replace it with a militant transgender ideology. We're honored to be joined today by many incredible advocates for women's sports, including the brave swimmer at the forefront of this battle. And Riley Gaines is a person that I've been watching. With my action this afternoon, we're putting every school receiving taxpayer dollars on notice that if you let men take over women's sports teams or invade your locker rooms, you will be investigated for violations of Title IX and risk your federal funding. There will be no federal funding. With this executive order, the war on women's sports is over. We are restoring sanity and common sense, defending the rights and safety and pride of the American people, including our great female athletes. واتاي sidoo kale arinta baasaboorka waxaan ogeyn in qofku pronounka wuxuu rabo ku qoran jiray Trump sidoo kale shaqaalaha dawladda wuxuu yiri emailkooda saxiixooda wax pronoun la yiraahdo magac oo she iyo he waxaan ahayn
ma arki karo yiri waxyaabahan kaloo samaysteen anigu ma arki karo email loo diray shaqaalaha dowladda dhan sidoo kalena baasaboorka waxa uu yiri gender ayaa lagu qorayaa lab iyo dadig rag iyo dumar waxaan ahayn lagu ma qorayo waxa marka dad fara badan waxa jiro marka qof markii hore ahaa rag oo dumar iska dhigay iyo qof dumar ahaa oo rag iska dhigay baasaboorradii markii ay ka dhaceen oo loo soo cusboonaysiinayay Trump waxa uu yiri kullu shay'in yarji'u ila aslihi markii aad dhalinaysa maxaad ku dhalatay dumar ayaad ahayd Soomahan ha dumarkaadii ayaa lagu qorayaa female ayaa loogu qorayaa adiga markaad dhalanaysa maxaad ku dhalatay nin hadda maxaad iska dhigtay naag ayaad iska dhigtay Soomaa kullu shay'in yarji'u ila aslihi ninkaadii male ayaa loogu soo qoray iyagoo qaylinaya arkay waqti fara badan ayaa naga galay inaan isbedelno inaan san iska dhigno waaw qayladooda bixaysa maalmahan marka arrintaasina sidoo kale waa uu qabtay wuxuu yiri qofku markii uu dhalanayay hadii uu rag ku dhashay hadda dumar iska dhigay waxba iga magelin male ayaa loogu qorayaa markii hore qofkan dumar ayuu ku dhashay hadda nin ayuu iska dhigay Soomaa male ayaa loogu qorayaa nin ayaa loogu qorayaa baasaboorka arrintaasina sidoo kalena waa uu sameeyay waxa sidoo kale shaqaalaha hay'adaha dowladda uu ka mamnuucay in Black History Month loo dabaaldego bisha dadka madowga ah in Martin Luther King Jr. Day maalintaasi loo dabaaldego June 10th waa markii Oklahoma dadka lagu xasuuqay Tulsa Oklahoma Malayna loogu talagalay Texas waxay ma garanayeen LGBTQ bisha ayagana June oo Pride Month la yiraahdo waxa yiri waxaas looma dabaaldegi karo sidoo kale Holocaust Remembrance xasuuqii dadkii waxyaabahaas oo idil Trump meesha waa uu ka saaray dhinaca kale Project 2025 waxa qoray Heritage waa book ka kooban 900 oo page ka badan marka Trump waa iska fogay anigu wax lagu kumanay dad Trump la shaqeyn jiray iyo dad taageero ayaa qoray marka waxa la leeyahay waa qorshaha Trump uu ku shaqeyn rabo 4 sano oo madaxweyne yahay marka waxyaabaha hadda laga soo calaamiyay waxa kamid ah in wasaaradda waxbarashada toddobaadka soo socda la filayo in Trump uu wareegto soo saaro yiraahdo wasaaradda waxbarashada la yiraahdo ma jiraan waxa yiri goboladu waxbarashadoodu waa inay maamushaan markii iskuuladii free ah meesha may ka bixi doonaan arrintaasina sidoo kale waa ay jirtaa shaqaalaha dowladda waxay isugu jiraan career employees kuwa la yiraahdo oo ilaa iyo dhowr madaxweyne la soo shaqeeyo shaqaale khibrad leh iyo kuwa appointed oo madaxweynuhu magacaabay sida wasiirada oo kale marka 2 milyan oo kamid ah shaqaalihii dowladda email ayaa loo diray waxa la yiri shaqada waa muddo ilaa iyo September mushaarkiina la idin siinaa isaga taga ama hadii kale waa la idin fire gareynaya hadda 40,000 oo qof ayaa qaadatay ayaa la leeyahay oo shaqadii isaga tagtay ilaa September xitaa hubaal ma ahan ilaa iyo September in lacagtooda la siinayo marka sidaas ayaa la yiri inta badan shaqaalaha qaarkood waxay leeyihiin arrintan waa argoosi cabsi ay nagu abuurtay qalqal iyo habeenkii inaan qarawno marka 2 milyan oo shaqaale shacab ah ayaa dowladda u shaqeeyo marka emailkaas ayaa loo wada diray 24 saac ayaa la siiyay waxa la yiri dalabkaas qaata hadii kale shaqada waa la idin ka ceerinaya marka Trump wuxuu la dan leeyahay lacag ayaan dowladda u save gareynaya laakiin arrintan horey ayuu u sheegay Project 2025 ayay ku qoran tahay sidoo kalena wasaaradda cadaaladda waxa uu ka ceeriyay qaar kamid ah baarayaashii khibradda lahaa ee isaga kiisaskiisa baaray gabi ahaanba waa uu ceeriyay FBI-da sidoo kale baarayaal iyaguna khibrad leh ayaa shaqada laga ceeriyay hadda CIA-da shaqaalahooda dhan waxa la yiri 8 bilood ayaa lacag la siinaya ayagana email ayaa loo diray gabi ahaanba shaqada isaga taga marka yaa wadanka ilaalinaya FBI-da iyo CIA-di hadii la yiraahdo shaqada isaga taga arrintaas wadankii waa baylah sidoo kalena 5,000 oo kamid ah shaqaalaha FBI-da oo January 6 baartay kiisaskoodii Trump wuxuu yiri magacooda la soo gudbiyo magacooda ma macnaha ID numberkooda iyo shaqooyinka ay qabtaan waa loo soo gudbiyay ayaa already leh iyagana shaqada ayaa laga ceerin doonaa marka arrintaas waa argoosi sida hadda muuqata wasiirka cadaaladda Pam Bondi aqalka sanadku waa ay meel mariyeen 52 ay ku meel mariyeen 46 waa ay diiday Trump ayaa shalay goobjoog ka ah marka la dhaarinayay Clarence Thomas oo garsooraha maxkamadda sare ayaa dhaariyay sidoo kalena Scott Turner oo isaguna nin madow ah oo NFL ka ciyaari jiray wasiirka guryaha iyo horumarinta magaalooyinka ayaa loo meel mariyay wasiirkaasi 55 ayaa u codeysay 44 waa ay diideen wasiiradii u dambeeyay ayay noqdeen oo ku soo biiray dhinaca kale Elon Musk Trump waxaan ognahay 290 milyan ayuu Elon Musk siiyay xilligii Trump oo la doorashada uu ku jiray marka afwax xunay xisho Trump waxa uu amar u siiyay Elon Musk in wasaaradaha dowladda intuu dhax galo wax kasta oo lacagaha oo ama dibadda lagu bixin jiray ama wadanka gudihiisa bilaa macna ku baxayay markaas wasaaradda loo magacaabay Department of Government Efficiency macnaheedu waxay tahay lacagaha sida macna darada dowladda ay u bixinayso in la save gareeyo oo dowladda dib loogu soo celiyo marka amarkaasi ayaa la siiyay hadda wasaaradda maaliyadda ayaa loo ogolaaday wasaaradda maaliyadda waxa la yiri xogteeda dhan ayaa loo dhiibay marka qof kasto Mareykan social security-kiisa Elon Musk hadda waa u haya xogtii wasaaradda maaliyadda iyo payment lacagaha qaabka u bixisa dhan ayaa loo dhiibay waxa lagu magacaabay special government employee waa ayaa leeyahay ninkan Elon Musk waa shaqaale qaas oo dowladda ka tirsan xafiis ayaa aqalka cad laga siiyay dadka la shaqeynayna waxa uu soo xushay 6 dhalinyaro ah oo da'doodu ay u dhaxayso 19 ilaa 25 19 22 22 23 24 25 isaga ayaa soo xushay waxa uu dad marka khibrad la dhalinyaro ah
wasaaradda maaliyadda sidoo kale USAID waa tii iyaguna sidoo kale ay galeen oo shaqaale 13 kun shaqadii laga ceeriyay 40 bilyan lacagtoodii ayna la hakiyay wasaaradda maaliyadda sidoo kale waa loo ogolaaday waa inay sheegay wasaaradda waxbarashada sidoo kale waa ay galeen oo hadda Trump waxa la filayaa toddobaadka soo socda inuu wareegto soo saaro wasaaradda waxbarashada dhanba baabi'iyo marka ninka Elon Musk shaqadiisa ayuu wataa dimuqraadiyiintii qayla ay bilaabeen waxay leeyihiin Elon Musk shacabka Mareykanku Trump ayay doorteen Elon Musk ma aysan dooran sidoo kalena hadda waxay leeyihiin in xilka qaadis ayaan Trump ku sameeynaa xilli laba toddobaad oo hadda xilka hay impeachment ayaan ku sameeynaa marka dagaal xitaa Ilhan Umar iyo u dhaxeeya waa kan bilowday Elon Musk uu leeyahay in sharciga ay ku xadgudbaysaa waa in la masaafuriyaa waxay sidoo kale leeyihiin seminar ay siinaysaa dadka waddanka sharci darrada ku soo galay sidii ay uga dhuuman lahaayeen inaan la masaafurin waxay sidoo kale leeyihiin walaalkeed ayay guursatay waa in la masaafuriyo waxyaabahaas oo idin ayaa taageerayaasha Trump waxay ku soo qorayeen barahooda bulshada xitaa waxay leeyihiin immigrationka sharciyada ay ku xadgudubto waa in la masaafuriyo marka waxyaabahaas oo idin ayaa la soo qoraya laakiin ninkii Elon Musk ahaa waxaa loo dhiibay furaha dawladda ayuu Trump u dhiibay waxa uu yiri marka dhaxgal dawladda wax kasta oo lacag oo bilaa micno lagu bixinayay waa inaad gacanta ku soo dhigtaa arintaasina sidoo kale waa in isla arki doonaa dimuqraadiyiinta iyo Elon Musk shalay xitaa guddiga la xisaabtamka aqalka wakiilada xilli ay doodayeen dimuqraadiyiinta ayaa waxay yiraahdeen Elon Musk waa inuu guddigan hor yimaado si su'aalo loo weydiiyo arintii waa lagu dooday waa lagu qayliyay iyadoo aan wax heshiis laga gaarin oo farfar ku taakir iyo kaciyo kuda lagu kala tagay in guddigaasi dhig oo gabi ahaantiis badoodii waa istaagtay dhinaca kalena xubnaha dimuqraadiyiinta iyo Republicaanka aqalka wakiilada baarlamaanka gobolka Minnesota xalay heshiis ay gaareen heshiiskaas saaka waxa ku dhawaaqay in Melissa Horman oo xisbiga dimuqraadiga hoggaankiisa ah waxyaabaha lagu heshiiyeen waxa kamid ah in labada sano ay soo socotay Liza Demuth oo xubintii Republicaanka ahayd ay afayeen inay ka sii noqoto aqalka wakiilada guddiyadana sidoo kale la qaybsado laakiin marka doorashada ku celiska ah ee 40B oo Roseville iyo Shoreview ay dhacdo 11 bisha Maaj ay soo socotay doorashadaas ku celiska ay dhici doonto gudoomiyaha gobolka oo u go'aamiyay waxa la leeyahay 11 bishan February aynu ku jirno waa in xubnaha u sharaxan ay soo gudbiyaan musharaxnimadooda 25 kan hadii loo baahdo doorashada primary-ga ayaa dhici doonta laakiin March 11keeda ayaa doorashada ku celiska ay dhici doonta marka hadii 67 iyo 67 ay noqdaan gudoomiyaasha guddiyada waa la kala qaybsan doonaa guddiyadana xubnaha simida ayaa loo qaybsan doonaa sidoo kalena heshiiska sidaas ayaa lagu gaaray waxaana Melissa Horman ay sheegtay in 13 January heshiiskan ay soo jeediyeen awood qaybsiga laakiin Republicaanku ay diideen waxay tiri waan ka xunnahay inaan ku dhawaad muddo 4 toddobaad kala fadhiga aan xadiri wayno oo Republicaanka aan quorumkaasi u diidno laakiin laga maarmaan ayay ahayd iyadoo sidoo kalena heshiiskaasi saaka si rasmi ah ugu dhawaaqday Melissa Horman waxay tiri Leader Demuth will be Speaker for 2 years, but with some limitations that align with our closely divided House and soon to be tied. House DFLers will be in the chamber today to provide a quorum, and committees will begin their work on Monday. This agreement honors and protects the will of the voters both in Shakopee and statewide. That is what Democrats have been asking for from the beginning, and I'm pleased that this agreement does that. Given the situation we faced, with Republicans looking to engage in an illegitimate power grab, Democrats made the difficult decision to deny quorum to protect the will of the voters, and we succeeded. That it took nearly 4 weeks to reach this agreement is regrettable and was unnecessary. This agreement is essentially the same as the last offer I put on the table on Monday, January 13th, including conceding the speakership. We could have avoided all of this, honored the will of the voters, and started in a bipartisan collaborative fashion from day one. هذه هذا ما سنتين أصحابها إنت المركلة كل مدونة وصاحبك علم وراء